kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena qodobada barnaamijkeena inuu ku eegi doono waxa qayb ka xaaladda Tigray oo laga deerinayay iyo TV-ga maamulka gobolka Tigray oo baahiyay war la yaab leh maxaa ka jira in go'aankii ugu dambeeyay uu qaatay hogaamiyaha gobolka Tigray hadaba wararkii ugu dambeeyay eegi doona 45 maalin kadib maxaa la gudboon Tigray maxay tahay qorshaha ay diyaariyeen ballamihii Abiy ay galeensa maxaa ka hirgala maxay diidan yihiin hadaba wararkeena ayaan inta badan ku eegi doona war saxaafadeed ka soo baxay maamulka gobolka Tigray ayaan u eegi doona saxbiyaal oo aynu faahfaahin doona ciidamada Itoobiya ayaa wali ka bixin qayb ka mid ah gobolka Tigray waxaana telefishinka Tigray uu baahiyay war saxaafadeed uu soo saaray hogaamiyaha Tigray Debretsion Gebremichael isagoo sheegay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa TPLF ay wali isku hayaan gobolkan ku yaala waqooyiga madaxweyne Debretsion ayaa waxa uu si toos ah u sheegay in ciidamada Itoobiya aysan ka bixin furmaha hore ee dagaalka muddo 45 maalmood oo uu socday heshiiska nabadeed waana arrin weyn oo ay iyagu sameeyeen annagu diyaar ayaan u nahay inaan wax walba sameeyno waanu dhaqaaqnay furmihii ayaanu faarujinay laakiin maanta waxaanu la diyaariyay shirqool weyn oo la rabo in inaguna lagu dabo ama lagu dhibaateeyo toddobaad ka hor warbixin kooban oo uu siiyay golaha Tigray ee ku saabsanayd hirgelinta heshiiska nabad ee Pretoria waxa uu ku sheegay in ay diyaar u yihiin in dawladda gobolka Tigray ay sii wadi doonto inay ka go'an tahay fulinta heshiiskaas laakiin hadalkaas siima jirin oo isbedelay madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Eritrea ee kuwa maxarada ay dambiye aad u foolxun badan ay ku hayaan shacabka Tigray wuxuuna ugu baaqay dawladda Itoobiya inay ciidamadaasi kala baxdo heshiiskaasi ciidamada Eritrea iyo ciidamada maxaradu waxay sii wadaan inay ku kacaan dambiye aad u foolxun iyo inay dhacaan hanti xuquuqda dadkeena wali waa lagu tuntay waana lagu tumanayaa barakacayaasha wali kuma soo laaban guryahooda ayuu sii raaciyay madaxweyne Debretsion waxa uu xusay in kooxda kormeerka ee Midowga Afrika aysan imaan Tigray isla markaana imaatinkoodu yahay mid wali la filayo in si habsami leh loo fuliyo heshiiska nabad ee wada gaareen isagoo ka hadlayay gargaarka bini'aadanimo madaxweynuhu waxa uu sheegay in ka badan 76,000 oo metrik oo tan oo cunto ah ay awoodeen inay gaaraan Tigray isagoo dhanka kale carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la kordhiyo bixitaanka ama sidoo kale bixinta gargaarka bini'aadanimo si loo quudiyo in ka badan 6.5 milyan oo qof oo u baahan gargaar ee ku nool gobolka Tigray la yiraahdo waxa uu leeyahay xaaladdu way adag tahay waxaana loo baahan yahay in loo gurmado dadkan dhibaatadu haysato oo dhaxlaya waxa aysan wiligood arkin ama aysan ka kaban dhibaatada ugu weyn hadda taagan waa in gobolka Tigray way dhibaato ka taagan tahay waxaana uu leeyahay waxaan u diyaarsanahay markan oo aan u diyaar garoobaynaa inaan dagaalano aan iska dhicin cid walba oo awood noo sheegata ama rabta in inagu nagumaato ama nagumaysato mana ogolaan doono in aynu aqbalno qorshe walba oo dhib u ah ama lagu dhibaateenayo taas ayaana marqaato ah waxa uu isagu aaminsan yahay iyo sida uu rabo in uu sidoo kale u bedelo madaxweynaha waxa uu sidoo kale aaminsan yahay in haddii heshiiska uu hirgeli waayo ay iyagu u diyaar u yihiin inay la dagaalamaan oo ay iska dhiciyaan cadowga ku soo duulay oo kala jeedo maamulka Abiy Eritrea ama xariya canfar wayahay wararkaasi Itoobiya waan u laaban doonaa markan haddii aynu eegno madaxa qaramada midoobay ayaa ballan qaaday shir madaxeedka caalamiga ah in aysan wax micno ah ka dhalan sanadka soo aadan dhibaatooyinka Ukraine qaramada midoobay waxay martigeli doontaa shir madaxeedka cimilada macna la'aan sanadka 2023 si loo kiciyo tallaabooyinka dawladdu ay qaadeen oo la xiriira xiisadaha cimilada xogaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa yiri iyadoo hadafka aanu laga fogaaheyn dhibaatooyinka ka jira wadamada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka isagoo ka hadlay shir jiraayad oo ku qabtay dhamaadka sanadkan Guterres waxa uu sheegay in dunidu ay u socoto jiha qaldan oo isbedelka cimilada iyo in dawladdu ay ka gaabiyeen dawladuhu wayaane balanqaadkooda ahaa in ay hoos u dhigaan qiiqa ay hawada u sii diraan Guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay ay martigelin doonto shir madaxeedka bisha September iyadoo ujeedku tahay in la xisaabtamo dawladaha lagana dalbado qorshayaal la taaban karo xaaladda ayaa ku adag qaramada midoobay waxayna aaminsan yihiin in dhibaatooyin baasan ay ka jiraan wadankan iyadoo ay dagaalo iyo colaad baahsan ay hareeyeen Ukraine colaadaha ka jirto waxa la leeyahay Ukraine ayaa dib u soo celisay awoodda ku dhawaad 6 milyan oo qofood oo 24 saac la soo dhaafay gantaalada Ruushka ka cararay waxyeello ayaa loo geystay tamartii ama sidoo kale kaabayaashii tamarta ee muhiimka ahaa oo dhan Zelensky ayaa aaminsan in dadkan Ukraine ay dhibaatadan ku jiri doonaan haddii aanu la taageerin taliyaha booliska Poland ayaa sheegay in qaraxa isaga isbitaalka loo dhigo dhibaato ka soo gaaray waxaana Ruushku uu wili duqeynayaa qaybo ka mid ah wadankan ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale go'aan ka qaatay colaadda iyo dagaalada ka socda wadanka Ukraine oo dhibaato badan loogu geysanayo ciidamada wasiirka difaaca Ruushka Sergey Zhengo ayaa kormeeray ciidamada ku lugta leh hawlgalka militariga gaar ahaan ciidamada Moscow ee Ukraine ku sugan sida wasaaraddu ay sheegtay
waxaa sidoo kale madaxweynaha wadankaasi Vladimir Putin uu tallaabo soo jeedina ka dalbaday taliyaasha ciidamada qalabka sida oo ay u maleynayaan in ololaha military Ruushka ee Ukraine uu sii socdo mar uu booqday xarunta hawlgalka ayuu yiri isaga oo aaminsan in ciidamadu ay sii laba jibaaraan colaadooda wasaaradda difaaca ee Ruushka waxaana ay sheegtay in hubkeeda saxaanshaha ah ay ku dhufatay qaybo badan oo kamid ah dhismaha militariga wasaaradaha Ukraine iyo tamarta xarumaha maamulka ee militariga baaqan iyo sidoo kale sheegashadan gabi ahaanba waxay ku soo aadaysaa iyadoo colaadu ay laba jibaarantay oo ay weli taagan tahay meeshii ugu adkeed gaashaan ayaa la duldhigay goob lagu kaydiyo qashinka nuclearka ee la qarash gareeyay ee warshada tamarta ee nuclearka ee Zaporizhzhia ee koonfurta Ukraine si looga ilaaliyo duqeymaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida uu sheegay sarkaal Ruushka ka tirsan oo ku sugan gobolkan dhanka diblomaasiyadda warar ayaa ka soo yeeraya xawaaruhu uu Jarmalku ku guuleystay in uu dhiso in uu isku xiro gaaskii ugu horeeyay ee sababay in uu bedelo sayada gaaska ee Ruushka ka luntay waa in tusaale u noqda dhaqaale cusub oo Jarmal ah Carlos Olaf Scholz wasaaraha wadankaasi Jarmalka ayaa sidaas ka sheegay furitaanka madal weyn oo halkaasi lagu qabtay Moldova dhankeedu waxa ay gaartay heshiis damareed oo waqti gaaban ah kaas oo caawin doona in laga soo saaro ama laga saaro mid kamid ah wadamada ugu saboolsan Yurub oo ku tiirsan gaaska dabiiciga ee Ruushka sarkaal sare oo ka tirsan ayaa sidaas yiri wareegii ugu dambeeyay cunaqabateen midowga Yurubna oo kalena Ruushka ayaa waxa lagu soo rogay Ruushka waxaana ay ku saabsan tahay colaadda iyo dagaalka ka socda wadankan la yiraahdo Ukraine waxaana lagu baaqay in isbedeladu ay noqdaan kuwo muhiim ah Ruushka ayaa Iran siin doona qaybo badan oo military ah oo ay ku bedelan karaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida ay sheegtay dowladda Britain wasiirka difaaca boqortooyada Ingiriiska Ben Wallace ayaa sheegay in Ruushka uu doonayo in Iran uu siiyo qaybo badan oo kamid ah militariga horumarsan ee u baahan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Iran waxay noqotay mid kamid ah taageerayaasha ugu sareeya ee militariga Ruushka Wallace ayaa u sheegay baarlamaanka isaga oo qayb kamid ah bayaan ku saabsan khilaafka Ruushka iyo Ukraine iyada oo ay bixisay in ka badan 300 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Kamazgaasa Ruushka hadda waxa uu doonayaa inuu Iran siiyo qaybo military oo horumarsan taasi oo wiqaysa awoodda bariga amniga caalamiga ah ee labada dal iyo sidoo kale wax isdhaafsiga Zelensky dhankiisa waxa uu adkeysan doonaa mana tanaasuli doono waxeena dhulkeena ayaan u baahanahay yiri Zelensky ayaa booqday jiida hore ee Bakhmut waxaana uu noqotay goobtii ugu horeeyay uu ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa si uu abaalmariyay askartii difaacday wadankiisa Telegramka Zelensky waxa uu ku qoray Bakhmut waa deegaankeena dadkeena cadowgu ma gumaysto kuwaas oo geesinimadooda wata waxay cadeeyeen in aanu adkeysan doono oo aynan ka tanaasuli doonin waxayna Ukraine waa kugu faanayaa waad ku mahadsan tahay geesinimada adkeysiga iyo xoogga lagu muujiyay iska caabinta weerarada cadowga ee Ruushka taasi oo muhiim u noqotay in dhulkeena aan difaacano ayuu yiri Zelensky isagoo dhiirigelinaya ciidamada dhiirigelin weyn ayuu ciidamada u sameeyay Zelensky markii uu tagay Bakhmut waxa uu abaalmariyay saraakiil isagoo dalacsiiyay qaar kamid ah saraakiisha kale waxaana uu abaalmariyay dhammaan ciidamadii furmaha ku sugnaa ammaan ayuuna kala duldhacay qaabka ay u difaaceen dhanka kale 3 qof ayaa ku dhimatay qarax dhuumaha gaaska ee Ruushka sida saraakiishu ay sheegeen 3 qof ayaa ku dhimatay kadib markii uu qarax ka dhacay dhuumo gaas oo ay marayeen bartamaha Ruushka kaasi oo gaaska sii marayay Ukraine ilaa Yurub sida ay sheegtay mas'uuliyiinta maxalliga ah oo kala doorarka ee taas oo ay dawladdu leedahay ayaa sidaas ku warantay saraakiisha ayaa ku sheegay Telegramka in qulqulka gaaska ee qaybta dhuumaha ee loo yaqaano Arangio ay mar kale sii laba jibaarantay hay'adda taas ayaa soo xiganaysa hay'adaha gargaarka ee degdega ee maxalliga ah waxaana ay sheegtay in 3 qof ay dhinteen midna uu dhaawacmay wasaaradda xaaladda degdega ee gobolkan Javaja la yiraahdo ayaa sheegtay in dhuumahaasi ay qarxeen xilli ay ku guda jireen howlo dayactir ah oo la qorsheynayay meel u dhow tuulada Kalenimo oo qiyaastii 150 kilomitir u dhiganta 9 meel dhanka galbeed ka xigta magaalada Folka ee Kasan waxaana la soo warinayaa in weli ay xaaladdu taagan tahay dhuumaha oo la dhisay sanadihii 1980 ayaa ka soo galay Ukraine iyaga oo sii mara bartamaha metrika ee Sudsha oo hadda ah marinka ugu weyn ee gaaska Ruushka uu gaaro dhanka Yurub gudaha saxabiil halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doono waa bahda barnaamijkooda leh amaana Allah